sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aqoonsiga diblomaasiyadeed ee Mareykanku siiyay dowladdiisa ay ka dambeysay soo afjaridii xilligii ku meel gaarka ahaa iyo waxqabadka dowladdiisu ay samaysay 4 bilood ay jirtay. Waraysi khaasa oo uu siiyay idaacadda VOA ayuu ku sheegay in tallaabadan ay horseedi doonto in hay'ado badan oo caalami ahi inay Soomaaliya dib ugu noqon doonto ayna fududeyn doonto dib u dhiska dalka. Waraysigaasi qaybtiisa hore ayaan idiin soo gudbinaynaa. Waxa waraysigaasi la yeeshay Cabdiraxmaan Yabarow oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana uu dhacay sidan. haddii aan ku bilaabo saacadda madaxweyne goor imika saacadona ay naga xigto ayaa xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay shaaca ka qaadi doontaa oo ku dhawaaqaysaa in dowladda Mareykanku ay muddo 19 sano kadib ay Soomaaliya ay u aqoonsatay oo inay soo geliso baalka aqoonsiga dowladnimadeedii inay tahay dowlad jirto oo taagan waxaan maraynayaa farxad weyn iyo reereyn bay ummadda Soomaaliya u tahay gaar ahaan dowladda dareenkaagu siduu yahay marka ka horeysa aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan iyo VOA waa mahadsantihiin sidaad u sheegtay muddo dheer ayaa ka soo wareegtay dowladda Mareykanka in ay dowladda Soomaaliya ula macaamisho dowlad jirto oo la aqoonsan yahay haddana ay tahay markii ugu horeysay laba arrimood oo waaweyn sabab u ahayd mid waxay ahayd xilliga ku meel gaarka ah oo dhamaaday iyo midda labaad oo ah 4 bilood oo hadda xafiiska aan haynay oo shaqo aad iyo aad u badan aan qabanay oo aan maxaan ku yiraahdaa wixii dowlad looga baahnay asaaskoodii aan la nimiday oo la isku daray ayaa keentay anigu marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa tilaabo horukac leh oo diblomaasiyadeed oo u soo hoyatay dowladda anigu aan madaxda u ahay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan aqoonsigaasina wuxuu horseedi doonaa in aan meelo badan iyo hay'ado badan oo caalami ah oo aan kamid ahaan jirnay laakiin hadda aan kamid ahayn dib inaan ugu noqono taasoo fududeyn doonta dib u dhiska dalka waxaad ka dhawaajisay inaad ay sabab u ahayd 4 bilood oo dambeysay مثلا in dowladda waxyaabo ay qabatay hadda media laba aad nooga taabato waxa ugu muhiimsan wada xaajoodiyo Sacuudiga ay muddadaas oo dhan oo dowladda Mareykanka anaga naga dhex jiray oo badankooda ku wajahnaa dowladda Mareykanka horta koow inay fahamto dowladnimada iyo sida aan u aragno inaan dib u soo abaabuleyno dowladda Soomaaliyeed arrimo qaas oo caalamka oo dhan uu daneeyo ayaa jira oo nalaga eegayay oo ay kamid tahay arrimaha amniga oo ay kamid tahay arrimaha cadaaladda oo ay kamid tahay arrimaha maamulka maaliyadda dowladda oo ay kamid tahay dowlad dhisidda iyo dalka sida aan dowladnimada inaan ugu baahina aan rabno oo ay kamid tahay sida wixii lagu soo heshiiyay aan u ilaalinayno marka intaas ay ahayday oo ay runtii inay fahmaan ay rabeen oo aan aad ay nogala doodeen oo aan u fahamsiinay qaybta kalena waxay ahayday wixii Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay dabcan dowladda Mareykanka hanti ay Soomaaliya ku leedahay dowladda Soomaaliyana hanti ay dalkan Mareykanka ku leedahay hantiyadaas oo muddadii 22 sano ahayd xaaladahoodu ay aad isu bedbedeleen waxa laga yeelayo iyo ayaa kamid ahayd waxyaabihii aan ka wada hadalnay heshiisyaha jiray dowladdu markay burbureysay dowladda Soomaaliya kala dhaxeeyay heshiisyadaas oo kuwa dhaqaale kuwa amni kuwa maxaan ku raadayay culture iyo waxbarasho intaas balaha heshiisyadaas oo qaarkood ay kamid ahaayeen inay iscusboonaysiinayaan haddii aan la bedelin inaan heshiisyadaas wax ka qabno in la bedelayo sidooda in lagu cusboonaysiinayo wax badan ay ahayd waxaan ka wada hadalnay inahaas oo dhan markaan isku soo fahamnay ayaa dowladda Mareykanka waxay ku qanacay inaan nahay dowlad responsible oo mas'uul ah oo wanaag iyo horumarna la jecel dadkeeda commitmentiga caalamiga iyo dhaqanka iyo qawaaniinta caalamiga jirtana ilaalinayso marka intaas ayaa ku qancisay in ay muxuu ahay na aqoonsadaan dowlad jirto oo dowlad ahaan loola macaamila wixii hadda ka dambeeya inaan ahaano waa gartay martiqaadkaaga saacadda madaxweyne waxaan qiyaasayaa inuu sababta ugu weyn ahayd intan lagu sheego oo hortaada saacadaha soo socda laga qiro ma lagu sheegay intaadan imaanin in arrinta lagu martiqaaday tan ahayd طبعا ها وatan ku sheegay 4 bilood la soo dhaafay wada xaajoodaan ku jirnay stage kan uu soo gaaray stages kala duwan oo lahaa xamu ka dhacay Nairobi oo ka dhacay marka stage-ki finalka ugu dambeeyay tahay oo hadda inaan saxiixi aan wada sameeyna oo soo gaaray marka waa la ii sheegay dowladdan imika aad madaxda ka tahay hadii la aqoonsado waxay uga duwan tahay kuwii ka horeeyay oo dhan
aqoonsi ma jirin marka ma gaarsiisnayn heer madaxweynaha loo geeyo laga yaabo in aqalka cad iyo Obama ay saragtaan mar haddii aqoonsigu yimid wallahi waxaa dalkan wad garanaysaa dal nidaam iyo dawladnimo iyo systems ay ka jiraan waaye waxaan ku soconaana waa procedureskaas iyo systemskaas dawladnimadu jira annaga waxaan u nimiday waxay ahayday si sharci ah oo dawladnimo ah inaan heshiiskaasi aan u saxiixno oo aan waxayno White House ku aan tagayaa dabcan waanan rajaynaynaa in madaxweynaha aan is aragno laakiin hawsha aan u nimiday kuma xirna aragtida madaxweynaha aadan gartay marka aad is aragtaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka arintaas imika oo aqoonsiga oo mowduuca aad u timid ugu muhiimsan ka sokow ajendayaasha kale ee aad isleedahay waa muhiim inaad kala hadasho maxaa kamid ah isleedahay mar haddii uu dhaco maxaan ku yiraahdaa arintaas heshiiska ah oo aqoonsiga ah kadib waxaan bilaabaynaa bilowgeedii ka wada hadli doonaa sidii markaa labadii dawladood wada shaqayntoodii iyo wixii naga dhaxeeyay ka wada hadalkoodii iyo sidii aan mustaqbalka u wada shaqayn lahayn ka hadalkoodii bilaabanayo laakiin wax maanta ku dhamaanaya ma ahana isla muddo kale oo sii socon doona hadii la yiraahdo laga yaabaa heer safiiro isweydaalshadooda inay shakada soo gasho waa automatic yani recognition-ka ayaa keenayo dawladda Mareykankuna waxaan rajaynaynaa ilaa bisha 3 sanadka in safaaradeeda Muqdisho dib loo furi doono annaguna teeni dhawaan ayaan safiirka soo magacaabi doonaa waa la furaya marka taasi way dhacaysaa hadii la yiraahdo waa waqti iyo qaban qaabadeed baan naga xigtaa hadii la yiraahdo madaxweyne maalmahan imika 2 ilaa 3 maalmood baad Washington joogtay kulliba hay'ado kala duwan iyo dad kala duwan iyo mar kala duwan baad aragtay hada soo koobto kuwa ugu muhiimsan aad la kulantay waa runta waxa ugu muhiimsanaay hay'adahan la kulanay USAID ayaan la kulanay shir balaaran la galnay waxa kaloo la kulanay madaxweynaha ama gudoomiyaha bangiga adduunka iyo teamkiisa ayaan ayagana la kulanay dhamaantood waxaan ka wada hadalnay Soomaaliya iyo hay'adahaasi sidii ay u wada shaqayn lahayn siba loo wada shaqayn jiray awal hadda si ka duwan sidii hore inaan u wada shaqayno ayaa muxuu ahay aan bilownay wada hadalkeedii waan isla soo garanay qaabaalkii loo bedeli lahay qaabkii hore jiray oo qaab cusub oo hadda hor leh oo aan u wada shaqaynayna loo dhisi lahaa loo nidaami lahaa taasna hawsheeda ayadana way bilaabatay wayna socotaa dhamaan dabcan waqti baa naga xiga sidii hore shaqadu ay ahaan jirtay si ahaan karta markaan si ka duwan ay noqon doontaa hadii la yiraahdo markii aad xafiiska qabatay doorashadii lagu doortay September waxaan xasuustaa hadalkii khudbadaadii wixii ugu muhiimsanaa oo 3 jeer ku celisay wuxuu ahaa amaanka afartii bilood aad imika ay dawladda jirtay haddaad soo koobto maxaad is leedahay waad ka qabateen ammaanka annaga waxaan sameynay 6 tiir oo aan u bixinay bilowga soo noqoshada cusub siyaasadda dawladdu ay ku saleysnaa doonto 6daas tiir waxaa kamid ah 3 muhiimadood 6 tiir waa muhiimadaha ugu waaweyn 3 aan gooni uga sii qaadnay oo ta koobaad ay tahay amniga tan labaad ay tahay garsoorka tan saddexaadna ay tahay maareynta iyo maamulidda lacagta dawladda ama public finance management waxa afka qalaad lagu yiraahdo waxaan aaminsanahay haddii aan la helin amni wax kala suurto gali kara ma jiraan wax walba waxay ka dambeeyaan amniga saasaan marka muhiimadda koobaad horta amniga uga dhignay magaalada Muqdisho caasimadda jamhuuriyadda ayaa hawsha ka bilownay midda dagaalka iyo maxaan ku yiraahdaa shabaab waa iska socday annagana waa naga horeeyay dagaalkaasi haddana wuu socdaa weli waanan halkaan ka sii wadnaa laakiin waxa ay ahayd muhiimadda amniga maxalliga ee dadka qofka Soomaaliga ah noloshiisa toos u taabanay kaasaan wax ka qabnay aan bilownay inaan wax ka qabanno oo aan haddana talaabooyin qaadnay kuwa kalena ay noo qorshaysan yihiin waxyaabaha aan ka qabanay haddii aan wax ka sheego waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho markaan anagu nimiday 60 checkpoint ayaa magaalada dhexdeeda tiilay oo mid walba aad garanaysid macnaha checkpoint magumeeliyaan sparo dadka maraya iyo baabuurta maraysa iyo xanibaada iyo maalin walba xabadaha inta ka dhaca dadku ay ku dhintaan ku dhaawacmaan oo waad garanaysaa 60kii sparo magaalada Muqdisho waa ka qaaday ma yaalaan maanta waxa ka qaadistaasi waxay macno badan u sii leedahay 60 sparo markii la qaaday qofna kuma dhiman qofna kuma dhaawacmin waxayna ku timiday
yani rabitaanka dadka iyo dadkii iyo mas-uuliyiintii joogtay oo dhan oo u wada istaagtay oo wiilashii maxaanku irahdaa raalli ahaada la yiriyo meesha laga dhaqaaji marka in 60 isbaaro la qaaday waa faa'iido in aanu qofna ku dhiman kuna dhaawacmin qaadistoodina waa faa'iido kale tooda agartay madaxweyne waa saa u sheegtay way jiraan isbaarooyinka aad qaadeen iyo dadka Lucas markan laga nadiifshay laakiin haddana anigu waan ognahay wili dhibaatooyin baa jira Muqdisho maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa dad tuutooyin ku labisan oo askartii saad u xustayba iska dhigaya dadkii ciidamadii dawladda oo wax garaacaya oo wax kufsanaya oo dhibaatooyin ku jiraan marka ma waqtigii aad ku tala gasheen baa wili wax ka dhiman yihiin sidee xagee wax ka dabacsan yihiin maya Cabdiraxmaan waxaan qabaa horta dhacdadaasi waa jirtay way soo jireen dabcan hal marna ma dhamaanayaan way sii jirayaan laakiin aad bay u yaraatay dawladdu dagaalka ay ku hayso burburcadana daliil waxa uu ah xukuumadii ugu dambeeyay ee maxkamadu ay qaadeen oo nin gabarsaday mid dad dilay kulli dhamaantood dil toogasho lagu xukumay laguna fuliyay dawladdu talaabooyinka ay qaadayso yani anagu in Soomaaliyeed la kufsado raalli kama ahayn يعني قف Soomaaliyo dambi aan lahayn in la dilana raalli kama ahayn marka wax dawladdu haday taa isbaar qaadid haday taa wacyigelinta dadka haday taa kuwa dambiilayaasha ah la dagaalankooda oo cadaaladda horgeyntooda intaba way ku jirtaa laakiin dafiila la jaraya ma ahane waan si socon doonaan bariyaha soo socdo laakiin aad iyo aad aan ugu kalsoonahay in mar dhow ay dhamaan doonaan hadii la yiraahdo